mogtahay in kuwan ay yihiin xayawaano loo baahan yahay inaad aragto ka hor intaanad dhiman. kow, dalka Australia waxaa ku nool xayawaan lagu magacaabo albino tarantula. waa nooc ka mid ah xaarooyinka oo dhif iyo naadir ku ah adduunka, kuwaasoo aanad arag weliga. laba, badda Atlantic Ocean-ka waxaa ku nool nooc ka mid ah libaax badeedka, waxaana lagu magacaabaa goblin shark. muuqaalkiisuna waa mid cabsi badan, waa mid dhif iyo naadira, waxaa laga helaa gunta hoose badda. saddex, dalka Venezuela waxaa ku nool xayawaan lagu magacaabo albino moth. waa nooc ka mid ah duqsiyaasha, waana mid dhif iyo naadira, sababtuna waa lahaanshaha midabka cad oo aan badanaa looga baran duqsiyaashu inay yeeshaan. afar, badda Atlantic Ocean-ka waxaa ku nool xayawaan lagu magacaabo blue parrotfish. waa kalluun la muuqaal buluuga, taas oo ka dhigaysa mid ka gedisan oo ka duwan dhammaan noolayaasha kale ee ku jira badda gudaheeda. haddaba daawade, adiga su-aal haddii aan ku weydiiyo, waa kii xayawaanka sida aadkaa kaaga yaabiyey? qaybta hoose kommentiga iigu sheeg. ha iloobin inaad follow noo saarto youtube-ka profileka saaranna aad subscribe dhahdo.